Assalaamu calaykum waa Doctor Mowlid Kudro dhammaantiin bay idin salaamaya markana waxaan halkan idinku soo gudbinayaa warbixin kooban oo ku saabsan siyaabaha xanuunka AIDS-ka lagu gudbiyo iyo siyaabaha aan lagu gudbin karin. Marka qof baa soo weydiiyey dhanka Facebook-ga markaan shalay soo dhigay casharka AIDS-ka ku saabsanaa su'aalahan marka kuwan iyo kuwo kaleba waan ka jawaabi doonaa. Kuwo kale oo idinku maaragtay aad haysaanna waxaad kusoo qori doontaan waqti aad haysaan xagga faallooyinka kusoo qori doontaan. Marka su'aasha horeyso inuu weydiinaya waxa weeyaan waa dhanka cadayga. Cadayga ma lagu gudbin karaa buu leeyahay. Marka jawaabtu waxa weeyaan cadayga waa lagu gudbin karaa laakiin waxa weeyaan waa marka uu dhiig wato. Laakiin dee qofkii war kama hayo moogtay dee goor uu dhiig lahayo goor aan dhiig lahaynba. Markaas sideedaba waxa fiican qofka in waxyaabaha taxadirka ay tahay in la sameeyo ka mid ah waa inaan caday la wadaagin wey. Marka waa taas oo wixii mar hadday halkaas ku jirto maaragtay iyada waa in laga fogaado weeyaan. Taasi waa taas. Oo arrinka bahalkan waxa lagu gudbiyo waa dhiigga. Hadduu cunto ii kariyo kadibna si kis yaro dhiiggiisa ah gaadho cuntada oo aan cuno ma ka qaadan karaa xanuunka. Wuxuu ka wadaa waxa cunada iyo waxaan su'aasha ka dhigaynaa qofka cunada ku karin kara AIDS qaba haa uu karin karaa wax dhibitana kuma jiraan. Haddii markaas uu su'aasha u dhigay dhiig uu qofkaas waa qof marba dhiigi ma qof caadi weeye qofkan xanuunkan qaba. Ka soo qaadba gacantaas jarantay waa siyaabaha dadku u sawirtaan qofkii dhiig xanuunkan qaba. Taasina dhibic ka mid ah dhiiggiisa ku dhacday cunadii hadhow ma ka qaaday. Jawaabtu waxa weeyaan haddii cunadaas ay karsanto ay dab gasho maya waxba ka qaadi maysid. Hataa haddii ay maaragtay waxyaabahan maaragtay midhaha la cuno dee tufaax oo kale qofka jaray haddii ka dhacdo maaragtay soo gaadho taa lafteed ayaa ahba maaragtay aad u yaraysa uga qaadi karto laakiin dhanka cunadu inuu weydiinayo qofku cuno buu karin karaa maaragtay lagama qaadayo marka. Dhididka qofka sidoo kale laguma qaadi karo. Gacanta wuxuu ku qabtay hadaad cunto kuma qaadi kartid. Waa taasina marka waa sidaas oo qofkaas cuno wuu karin karaa qofka kalena wax waa siin karaa kamana qaadayo marka. Oo maahaday waxay ku xidhan tahay maaragtay haddii 30 minute oo kale wax la kariyo maaragtay u dab galaan dhiiggaasi wax ka qaadaya ma jiraan. Sidii AIDS-kaas loo burburiyana badanaa isaga waxa weeyaan 170 degree Celsius waa inuu gaadho. Meelahaas baa lagu burburiyaa oo marka maaragtay waxaan u iman doonaa waa su'aasha dhanka xaggaas waxaan ugu iman doonaa su'aashiisa dhanka la xiriira qalabka dhakhaatiirta ilkaha. Ayagu waa inay kuwaasi su'aashaas waa su'aasha shanaad baynu ku boodinaa marka. Marka dhakhaatiirta ilkaha iyagu waa inay sterilization ku sameeyaan waxa weeyaan waa inay ku sameeyaan in ay jeermis dilaan. Jeermis dilka way ku sameeyaan marka waxyaabahaas la adeegsadaa heerkul baa la adeegsan karaa marka aad u sarreeya marka waa laga dili karaa marka taas waa taas. Qalabkaas dee waxa iyagana dhanka ilkaha lagu gudbin karaa ama dhakhaatiirtu ay gudbin karaan waa haddii aanay qaadin maaragtay tallaabooyinka lagaga hortago in qalabkaasi had qofku isticmaalaya uu qof kale u gudbiyo. Waxaana wanaagsan sideedaba qofkaas oo kale maaragtay qof hadduu og yahay weeyaan waa in uu si gaara isaga qalab gaara u adeegsado. Haddiiba ay jirto dee aan ogeyn mar walba waxa weeyaan marka qofka dhakhtarka ah ama maaragtay dentist-ga ahi waa inuu mar walba marka uu qof u dhameeyo qalabkaas sida ku habboon ee loo sterilize garanayo ama looga dilo jeermisyada oo dhan inuu habka qaado weeye. Marka taas waa taas. Saddexaadna ku noqono candhuufta ama caliyada afkiisa iyada oo duulaysa hadday afkayga gasho oonan u kastin ma ka qaadi karaa xanuunkan maya candhuuftu hadaad u kastay hadaad u kasinba candhuuftu ma gudbiso fayraska. Qof maaragtay xaaskiisa ama gabadhu ninkeeda waa dhukan kartaa. Waayihii hore dhunkashada dhabanka ahayd imika dhunkashadan dambe afka timi marka mar walba si kastaba ha noqotee halkii la iska dhunkadaba adigu candhuuftaas waxaan iyadana ku koobaynaa su'aashaas waa waxba candhuuftu ma gudbiso. Haddii qof kugu tufo qof AIDS qaba intaad wax ku tiraahdo tusaale oo kale uu kugu tufo candhuuf wax allaale wax ku qaadsinaysa ma jirto. Markaas taasina
waa taas. Dhanka kale hal mid unbaa jiraysa qofku dhankaas dhunkashada haddaynu ku noqono laba qof maaragtay lamaanaha hadday isku dheeraadaan dhunkashada afka ah laakiin qof labadooda midkood gaar ahaan waxaan ka wada ka qaboote xanuunka haddii ay afka ku leeyihiin nabaro way badanaa xanuunkani markuu dee qofka aad badan muddo dheer haya wuxuu keenaa nabaro keenaa ama boogu keenaa afka ah nabarada haddii isnugnugitaankaasi ay dhiigu kasoo nuugo qofka kale way keenaysaa marka waa suurtagal taas laakiin candhuuftu sideeda haddana labada qof afkoodaas waxba dee dhib qabin wax ay maaragtay qofka kala qaadsiinaysaa ma jirto waan gartay taasina aynu ku soconno marka afaraad wuxuuna leeyahay meel ka mida jirkayga hadday boog tahay ama dheecaan ka socdo qofka kale xanuunka qabana sidoo kale boog tahay jirkiisa oo labadeena boogood ama labada meelood oon dhaawac ka nahay istaabtaan ma ka qaadi kara xanuunka tan waxa weeyaan waa waxyaabaha kor u qaada in qofku ka qaadi karo qof kale oo casharkii haddii soo daawatay koowaad aan ka samaynay airiska casharo badan waa ka samayn doonaa oo su'aalo badan bay dadku qabaan oo ka jawaabayna laakiin casharkaa koowaad ee dhankaa ku xeel dheera caafimaadka isagoo ah waa waxyaabaha kor u qaada boogahaas inuu qofku qaado laakiin booguhu waxa ay yihiin waa kuwo ay tahay inay dhiig ku yaallo wey sida kale haddaanay wax dhiigi meeshaas ku jirin way adagtay sida loo gudbinaya laakiin mar leyba dee qofka hadduu boog qababa boog ku taalo adna boog ku taalo boogaha waxa isu goynayaaba dee maaragtay dee aan oran karnaaba waa hadee way aad bay u adagtay waa fadul oran mayno waxa boog loola doontay laakiin wuxuu weydiin waxa weeyaan dee haddayba dhicdaba marka adigu haddaydaa dhacdaba aynu ka jawaabina waxay ka dhigantay boogo istaabtay way siyaadinayaan kor bay u qaadaan laakiin boqolkiiba boqol iyaduna ma ahayn dee qofka qaadiso bahalkan wuxuu ku faafaa waa dhiiggaas wey marka taasina waa taas waa kala ilaasho boogihiina kala ilaashada wey ala kula xaal tilixaad haddaynu galno cayayaanka haddaynu galno su-aasha ku saabsan marka su-aaluna weydi waa su-aalo kuley la wada qabi karo marka isaga ku metelaya shadinjada kale aniguna qaarkan kusoo dari doonaa waxa weeyaan cayayaanka tusaale kaneecadoo kale ku qanito ma gudbin kartaa maya idamka ilaahay arrintaas dee dadkoo dhan baaba wada qabi lahaa dad badan buu bahalkaas ku dhacay hadday kaneecadu dee faafin lahayd marka waxyaabaha ilaahay inoogu irmaami tegey ereygaas waa dadkii hore adeegsan jiray waa waxyaabaha weeyaan ilaahay nagu martay dadka aad dhibaato ha timaado oo airiskan laftiisu dhib ha ahaado laakiin waxaa la yidhi balaba balay kaa cudubilaysata marka dee taa kalaa kasii darnaan lahayd maogti marka xanuunkan isagu maku gudbo walow bacteria maxaa yaday malaria iyo waxyaabaha nino kalo badan ay gudbiso xanuunkan la yidhahda dengowga la yidhahda berigdib waddanka kusoo batay isagana waa gudbisaa laakiin idamka ilaahay kan isagu halista sii ah ma gudbiso marka taasina waa taas waxyaabaha kale aan ku darayno oo su-aalahaas jawaabaheeda kale waxa weeye cidiya gurtoo kale ma lagu qaadi karaya jawaabtu iyaduna waxa weye waa maya waa cidiyaha wax marka la gurayo waxa lagu guraa waxa weeye waa cidida qofka kale iyadu hadduu jaro adna aad ku jarto laguma kala qaadayo cidiya gurtaasina waa taas waxyaabaha kale ee maaragtay keeni kara cadayga waan soo sheegnay sooma cadaygaas isaga iyadana laguma kala qaadi karo waxa weeye dee cadayga waan dee la kala fogey laakiin hadduu dee dhiig leeyahay markuu ku cadayni qofkani dee qof wasa garanaysa badanaa dadka oo dhan ay kuwa iska dhiigaan marka waa cadayanayaan dadka marka waxa fiican tahay in laga fogaado haddii gurtaas iyaduna waa taas waxa weeyaan waxyaabaha kale ee jira qofka tusaale salaanta oo kale dadka qaar baa jira waxyaabaha faquuqa keena wey moogti qofka qaar baa haysta hadduu qofkani qaboba inaan salaami karin marka waxay ka dhigantay waxaan oran karnaa dhididka laguma gudbiyo qofkaa dhididkiisa hadduu kusoo gaaro laguma gudbinayo iyadana taasina waa taas oo saas aad idiguna ku ogaan doontaan marka way badan yihiin waxyaabaha aan lagu gudbin karin laakiin dadku ay badanaa ay dee shaki ka qabaan sidoo kale waxyaabaha aanay
lagu kala qaadi karin waxaa kamid ah hadduu qofku ugu hindhiso oo kale iyadana laguma qaadi karayo hadduu qofku ugu qufaco oo dee iyagana waa se garanaysaa dee candho afkaaga sugan marka candhuuftu bay waxaana la soconaysaa iyadana laguma qaadi karo oo bahalku sidoo kale maaha dee xanuun iyadaba xanuunaa jira maaragtay lagu gudbiyo hawada dee isu mara waxaa airborne-ka waxa jirta maaha bahalkani markaas taasina waata sidoo kale waxyaabaha aan lagu qaadi karin waxaa kamid ah haddii qofka aad weel uu wax ku cunay ku cunto ama koob wax ku cabto biyo hadduu imika halka ka cabay uu cabay qofkaas aduguna koobkii waa Soomaalidu inta badan dee weel bay dee dul saaraan weelka wax laga cabo markaas haddii aad kaga daba cabto waa caadi waxyaabahaasoo dhani maaha waxyaabaha lagu kala qaadi karayo marka waa taas oo sidaas ayaad ula socon doontaan wixii kale su-aalo kale haddaad haysan marka kulley waad isoo weydiin kartaan dhanka faallada qaar intaan sheegnay intaa isoo weydiiyey intaan ku daray iyo in kaleba waa jiri kartaa wixii aad haysaan isoo weydiiya si aynu maaragtay tashuushka dadka aynu uga saarno waxaa jirayin xanuunka waxyaaba badan baa ku wareegsan oo huuhaa waxa weeyaan waxyaaba aan waxba ka jirin ayaa jira laakiin dadka lagu maaragtay boqo geliyo oo dadkaas hadiiba qof magacaas dee HIV buu qabaaba la dhaho lagaga cararo oo dee noloshiisan lagu adkaynayo dadkuna isku adkaynayaan waayo markaa ma wanaagsan waxyaabahaas oo dhan marka wax kastoo aad isleedihiin malaa waxaas waxba kama jiraan iyo wixii wax ka jiraan baan kala saari doonaa waad isoo weydiin kartaan dhanka faallooyinka kolley insha Allah waan qof walba u jawaabayna waayo xanuunkan waxa weeyaan mid ay tahay in wax badan iska weydiino wax badan oo ku wareegsanna ka jawaabno si aynu nolosha ugu fududeeyo kuwa dadka la nool sidoo kale kuwa dadkaasi eheladooda iyo cid kale oo garanaysaba dee dadkaasna aan hadhow talo uga baqanta inay oran karaan waxaan xanuunkan ay hayo waayo waxyaaba badan baa iska jirta dadku ay u arkaan waxaan lagu gudbin karo xanuunkanna maaha midin dee xanuunada kale ka daran wuu jiraayo dee dhankaa uu ka yahay dee midka xanuunkaas halista ah dee haddii qofku dawooyinka uu qaadan waayo ama goor fiican dee qofkani intaanu difaaca jirka dhulka dhigin hadduu dawooyinka qaato muddo badan buu qofku la noolaan karo waxaaba jira dee xanuuno kale oo fara badan oo qofka loo qabtaba bila ayaa la oran karaa waad ku dhiman kartaa kansarada qaar baa jira muddooyin loo qabto dhanaantaasaa ku hadhay qofki laakiin kan xanuunkan muddo dheer buu qofku la noolaan karaa markaasi waa taas xanuuno badan kale loo noolyihiin waa jiraan inta qofku noolyihiin la noolaan karo marka su-aalahan iyo jawaabahan waxa weeyaan si aan uga saarno meesha wixii ku tuli kuteen ku yimi iyo waxta iska maaragtay waxba ka jirinba markaasi waa taas halkaas kusoo koobina qaybtan wixii su-aalaha soo weydiiya insha Allah waxaan rajeynaa ciddii ku dhacda xanuunkan in Ilaahay ka caafiyo wassalaamu calaykum